xaflad lagu weyneynayay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan gobolka Banaadir, xukuumadda Soomaaliya, ururada haweenka, dhalinyarada, mashaayikhda iyo dadweyne kale oo fara badan. culimada iyo qaar kamid ah dadweynaha ayaa socdaal ku soo maray qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir, halka kuwa qayb ay ku soo mareen. ugu dambeyn ayaa ka soo qaybgalayaashu waxay isugu tageen fagaaro weyn oo ku yaala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. ugu horeyn waxaa xafladda weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa ka hadlay qaar kamid ah culimadii ka soo qayb gashay. محمد ku abtirsato kulli mid inaan u sheego waxa ka qurux badan inaan kulligood maaragtay halkan ka sheego inta ka soo qayb gashay ummadda Nabi Maxamed waan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay wicitaankii aan wacnay oo Nabi Maxamed inay u soo xaadiraan ahayd way ka soo baxeen jawaabtii aan ka rabnayna salaatu wasalaam xubbigiisii waxaa ku daaray وأتهم أفضل الخلق على الإدراك بعد الأنبياء والمرسلين وهو أبو بكر الصديق محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. waxaa dhanka kale xafladda ka hadlay madax ka tirsan gobolka Banaadir iyo ururada haweenka. anigoo faaraya magaca duqa magaalada Muqdisho aan gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Fiis oo hadda shaqo ku maqan iyo soo wakiisay inaan ka qayb galo xafladani. waxaan ballan qaadaynaa sanad kasta inaan kala soo qayb galno wixii aad ugu baahantihiin gobolka Banaadir oo caawinada aan garabkiina taaganahay. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa marlabaad iyo saddexaad dadkii isku taxaluujiyey qabaqabada weyn waana ku faraxsanahay. islaamka koor gabdhuhu waxay ahaayeen islaamka koor gabdhaha kuwa nolosha lagu duugayaayeen laakiin diinteed nagaalka u macaan kadib gabdhuhu maxay noqdeen xaggee ku dambeeyeen waa meesha hadda taaganahay ilaahay la karaameeyey haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan la midnahay gabdhaha muslimiinta oo maanta u dabaaldegaya adduunka meeshay joogaanba weyneynta dhalashada rasuulkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. ugu dambeyn waxaa xafladda xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee soo xiray wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan. darasanahay ummadda Nabi Muhammad inaan ka mid ahay ummadda Nabi Muhammad inaan ka mid tahay cisiya sharafkaaga way ma jiro Nabi Muhammad inuu ku heelan yahay cisiya sharafkaaga way ma jiro maxaa yeelay maalinta qiyaamo la tago oo makhluuqa Ilaahay ay dooban yihiin oo makhluuqa Ilaahay ummad gaal iyo muslim ay doonayaan shafaaca cudma oo wariyaan naga hoos kiciya qoraxdan qaama qowsayn oo anna noo gaartay nadalaalinaysa naar iyo janno meesha la doona hal ahdeen cid walba intay ka buusatay inta miftaaxa gaal iyo muslim shafaacada guud u noqonaysa in maxsharka lagu kala dareero la kala xisaabiyo qof walba ay qaybtiisa u qaato Nabi Maxamed baa nabigi saas ahaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu qiyaamo wuxuu diinayaa qof ummadda Muxamadiyada sheegtay inuu naarta galo hadduu galana uusan uga daba harayn shafaacati liahli kabaa'ir min ummati qof kastoo Muxamadi laa ilaaha illallah Muxammad rasuulullah yidhi dambi kastoo uu galo rahan waxaa yacni uu meel ugu taalla oo dhahan waa maqfurasho u ah shafaacatu xabiib Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo aanan mimbarka ambiyadu mid walba ilaah waday badbaadisay uu leeyahay nabigu mimbarka uu diinayaa wuxuu leeyahay ummati yaa rab ummadayda aaway ummadayda aaway markaasaa waxay nafsin ayagaan kuugu bilaabaynaa fasl qadaa waa u istaagayaa ilaa kan ugu dambeeya Nabi Maxamed uu meel uga soo ogaado Cabdikariin Cali Aadan goobjoog.